lan lahaa meeshan waxaa ila yaala identity cardka Kenya iyo ka Soomaaliya bitaqa alhawiya iyo passportka Kenya iyo passportka Soomaaliya maxaa ku kala qoran bal meesha layna geeyay baan doonayaa inaan misaal idinka siiyo kaarkan waa kaarka ay dawladda Soomaaliya bixisay waa kaarka aqoonsiga ruuxa Soomaaliga ah passportka lagu siiyaa Soomaa waxaa ku qoran marka la soo gaaro ruuxa jinsiga uu yahay waxaa ku qoran kelimada carabiga al-jins waa sax Soomaaligana waxaa ku qoran ma qorna waxaa qoran lab ama dhadig yaa qoran laakiin Englishka marka la yimaado luqada Englishka maxaa qoran gen baa qoran gen maxay tahay gender oo la soo gaabiyo passportka ay dawladda Soomaaliya bixiso waa ka waay asagana meesha jinsiga ruuxa tilmaamaya waxaa ku qoran kalimatul jinsi oo carabiya lab ama dhadig oo Soomaaliya laakiin marka luqada Ingiriiska la yimaado waxay qorayaan gender soo waxna dagaalayna waa dawladda Soomaaliya kaarkay bixisay passportkay hadda bixiso waxaa ku qoran gender baa ku qoran maxaa ku yaro ku qornaan jiray ka Kenya maxaa ku qoran kan Kenya kaarka muxuu ahaayay maxaa la yiraahdaa identity cardka Kenya waxaa ku qoran ruuxa jinsiga uu yahay sex baa ku qoran sex kuna laba mid u doonaa ama wuxuu noqdaa nin ama wuxuu noqdaa dumar male ama female buu noqdaa laakiin genderku waa kelimo cusub oo waa kelimadan ka hadlaynay Kenya lama gelinin passportka Kenya markaad soo qaado sidoo kale waa isagana kuma qorra gender kuma qorra waxa ku qoran sex baa ku qoran oo marka ama male ama female ama lab ama dhadig passportada Afrikaanka saasa ku qoran bal waxaad isweydiisaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaali meesha sex maxay uga guureen oo gender u qaateen ما يفهمون بها سينو فهمسنين متعلمين واي waxa wax dhigay mutacallimiin waay aqoon-yahan waay luqada iyo erebixinta way yaqaanaan isticmaalka hadda loo isticmaaliyo dhanka loo wada way yaqaanaan ceeb waay waxa noocan oo kale ah ceeb waay dawladii dalkii muslimka ahaa dadkii muslimka ahaa inay horboodo wax yiraahdo gender maanta oo dokumentiyada ku qorto dawladihii gaaladuna ay diidaan soo ceeb weyn ma waxaan gaaladayna ka weeyar dagaalka lagu la jiro ma aha inaan isu dhiibno nooroodna ma aha waana mid keenaysa dumarkii siyaasiyiinta inoo aha inay wax noocaas oo kale horboodaan oo public u horboodaan oo hata madaxdii iyo dadkii wadanka maamulaya toona aynan hal kelima ka dhigin waxa uu ololeynaa dokumentiyadiina waa lagu qortay baynamaa haddaad u timaado caalamul islaami dagaal baa lagula jiraa fikradda noocaas oo kale Sacuudiga 11 bilood gudahooda waxay ka masaafuriyeen wadanka ka eriyeen 3,000 oo dadka noocaas ay ka eriyeen wadanka oo markay ka war heleen la masaafuriyay Qatar oo hadda ciyaaraha caalamiga marna way ka socdeen maxay ku sameeyeen dadka noocaas oo kale soo lama socotaan diyaaradoodii hawada iyadoo ku soo jirtay hawada ka celiya oo dheerma soo gali karaan wadanka calaamadoodii astaantooduna ka muuqan karayso dawladihii Afrikaanka la dagaalamayo darkiisan Uganda iyo Kenya iyo dawladuhu say ula dagaalamayaan fikirka noocan oo kale annagana inaan dokumentiyadeena ku qorto dawladda Soomaaliya soo ceeb weyn ma warwarkaas gaarsiiya nimanka meesha fadhiya warka gaarsiiya ceebteena Allah asturo ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna xifdiyo adduunyo aqrab Allah hayna xifdiyo إلهي دينتنا هي نوح حفظيه أخلاقنا الله ينوح حفظيه آخرتنا الله ينوح حفظيه الدنيا الله ينوح حفظيه أولادنا الله ينوح حفظيه إلهي تبارك وتعالى في تنكي آفاتك الله ينوح حفظيه
shayaadiinta iyo sharkooda allah inaga xifdiyo fitanka iyo wixii wada allah inaga xifdiyo muslimiinta allah xifdiyo dalalkooda iyo deegaamadooda allah xifdiyo fidradooda allah u xifdiyo nabadgelyo buuxda allah siiyo midnimo iyo dowladnimo allah siiyo diintooda ku dhaqmaan iyo akhlaaqdooda ilaashadana allah siiyo ilaahay wixii shar wada dhan haynaga qabto hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina